suurtagal uma ay ahaan jirin inuu 2 kiiloomitir shaqada u lugeeyo Jake Cumar waayo dhiiggiisu xinjira ma lahayn sababtoo ah waxa uu ku dhashay xanuunka hemophilia oo ah cillad waxyeelaysa hidde-sidayaasha qofka waxa uuna halis ugu jiray inuu u dhiig baxo nabarrada ka ugu yar. waxaan filayaa in daaweynta hiddaha ay gelinayso rajo ah in noloshu ay dheeraato waxay u ogolaanaysaa marka ay wiilashaydu koraan inay noqdaan kuwa aad u firfircoon geedaha kori kara kubadda dheeli kara bannaanka ku ordi kara. Jake waxa uu ka mid ahaa 13 qof oo bukaan socod ah oo hiddayaasha loo daweeyey sannadkii hore waxaana caabuq lagu beeray jidhkiisa si loo curiyo hidde-sida cusub oo dhiigga xinjireeya. dhammaan dadkii bukaanka ahaa ee ka qayb qaatay tijaabinta dawada hemophilia maanta barowtiinkooda dhiigga xinjireeya waxa uu marayaa heer caadi ah. arrintani waxa weeyaan waa arrin aad u weyn markaad eegto xagga cilmi baadhista cudurkaasi waxaanaad arkaysaa inay tahay arrin cusub oo runtii ka dhigaysa noloshoodii si caadi ah ee dadka qaba hemofiliyada weliba teeda aadka ah. waxaa hadda la bilaabayaa cilmi baaris ballaadhan oo lagu eegayo sidii loo beddeli lahaa hidde-sidayaasha hallaysan kaasoo ay dadka bukaanka ahi kaga maarmi karaan tallaalka joogtada ah si buuxdana noloshooda wax uga beddeli lahayd.